Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ansixiyay sharci siinaya Ukraine ku dhawaad 61 bilyan oo kaalmo militari ah kadib markii uu meel mariyay aqalka wakiilada. Tani waxay caawin doontaa Ukraine inay siiso gantaalada iyo madaafiicda ay u baahan tahay si ay isaga caabiyaan ciidamada Ruushka ee guulaha ka gaaray goobaha dagaalka. Gargaarka Ukraine ayaana sidoo kale qayb ka ah 95 bilyan oo xirmo ah oo ay sidoo kale ku jirto taageerada militariga Israa'iil. Taiwan madaxweyne Joe Biden ayaana la filayaa in uu saxiixo si uu dhaqangeliyo. Madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ballan qaaday inuu xoojinayo doorka Mareykanka ee iftiiminta dimuqraadiyadda iyo sidoo kale in uu yahay hogaamiyaha adduunka xorta ah. Xirmada gargaarka waxaa ku jira ugu yaraan 8 bilyan si markaasi dib loogu soo celiyo Ukraine. Gantaalada rasaasta ciidamada Mareykanka ayaana sheegay inay bilaabi karaan bixinta kuwa maalmo gudahooda. Inta u dhaxaysa February 2022 ilaa Janaayo 2024 waxa uu Mareykanka Ukraine u siiyay 45.6 bilyan gargaar militari ah sida laga soo xigtay hay'adda cilmi baarista Jarmalka ee Machadka Kiel. Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak ayaana xaqiijiyay in Ukraine ay bixin doonto 500 milyan oo dheeri ah oo ka badan 2.5 bilyan oo ah gargaarka militari oo ay horey u ballan qaaday inay siinayso Ukraine sanadka 2024. Tani waxay bixin doontaa qarashka dheeriga ah ee gantaalada rasaasta, baabuurta gaashaman iyo dhammaan dagaalka dhulka. Bishii February 2022 Midowga Yurub waxa uu oggolaaday 50 bilyan oo kale. Xirmooyinkan gargaarka ayaana loogu talagalay Ukraine kadib markii Hungary ay joojisay xannibaadda heshiiska. Mid ka mid ah yaraanta muhiimka ah waa gantaalada hawada ee difaaca. Madaxweyne Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay in Ukraine ay u baahan tahay 7 waddan oo kale amaba sidoo kale nidaamka difaaca hawada si loo ilaaliyo magaalooyin muhiim ah. Ruushka ayaana weerar cirka isdaba joog ah ku qaaday magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine, taasoo ku dhow xadka Ruushka. Taliyaha ciidamada ilaalada qaranka Ukraine ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ruushka laga yaabo inay bilaabaan soo weeraridda magaalada. Ciidamada qalabka sida waddanka Ukraine ayaana sidoo kale lagu xadiday inay ridaan 2,000 oo madfac maalintii, sida ay sheegtay hay'adda cilmi baarista ee fadhigeedu uu yahay UK Royal United Service. taasi beddelkeedana ciidamada Ruushka waxay ridaan ilaa 10,000 oo madfac maalintii, sida lagu sheegay warbixinta Machadka Russia. Waxaana sidoo kale la sheegay in Ruushka uu sanadkii u helo ku dhawaad 3 milyan oo madfac oo ay ka helaan warshadooda iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi. Ukraine ayaana sidoo kale lumisay 583 kiiloomitir oo isku wareega oo u dhiganta 225 mayl oo laba jibaaran oo dhul ah oo ku taalla bariga dalkaas oo ay ciidamada Ruushka ay ku sugnaayeen tan iyo bishii Oktoobar ee 2023. Sababtoo ah in badan oo madaafiiclaan ayaana sidoo kale soo wajahday. Waxaa sidoo kale lagu sameeyay Iiraanta in ay sababaan khasaaraha magaalada. Wadamada reer galbeedka ayaana ka jawaabay duulaanka Ruushka February 2022 iyagoona siiyay ciidamada qalabka sida ee Ukraine hub ay isaga difaacaan weerarada kaga imaanaya dhinaca Ruushka. Mareykanka iyo UK waxa ay siiyaan kumanaan gantaalada lidka taangiyada iyo sidoo kale waxyaabo kale oo muhiim ah. Kuwaasna waxaa loo arkaa inay muhiim u yihiin joojinta horusocodka ciidamada Ruushka ee Kiev si looga hortago sarreynta hawada ee Ruushka iyo weerarada magaalooyinka Ukraine. Iyo kaabayaasha wadamada reer galbeedka waxay u direen Ukraine dhowr nooc oo nidaam madfac hawada ah. Kuwani waxay sidoo kale u dhaxeeyaan hubka ka hortagga diyaaradaha ee UK ee ridida gaaban iyo sidoo kale agabyada kale muhiimka ah. ku soo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye. waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tifiyada Soomaalida dhammaantood. ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet
rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid. HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyey, adiguna ma ku qanciyey.